Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qiimaha badan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan, subscribe inoo saar, muuqaalkana like saar, qaybta hoose ee commentiskana inoola wadaag wixii fikriya faala ah iyo dhiirigelinba. Waxaan maantay idinla wadaagi doonaa sirta ka dambeysa caanbixidda maqaaxida KFC iyo shaqsigii u dhabar adeegay aasaasideeda iyo dhibkii uu u soo maray ilaa iyo heer uu ku sigtay inuu nafta isdhaafiyo. Qisadaasi ayaan uga hadli doonaa muuqaalkeena maanta. Soo dhawaada mar kale saaxiibayaal. Colonel Harlan Sanders waa ninka ku sawiran maqaaxida KFC. Wuxuu dunida kusoo biiray sanadii 1890kii. Intii uu noolaa wuxuu la kulmay caqabado hareeyay noloshiisa. Wuxuu waxbarashada kaga tegay isagoo daayar ah si uu u caawiyo familkiisa maadaama uu aabihiisa ku geeriyooday isagoo aad u yar. Markii uu gaaray da'da 16 wuxuu isku dayay inuu ku biiro ciidanka xoogga USA isagoo weliba been ka sheegay da'diisa, balse ma uusan ku xasilin oo waa laga buriyay. Shaqooyinkii uu soo maray noloshiisa waxaa ka mid ahayd mar uu beeraley ka noqday gobolka Indiana ee dhaca dalka Mareykanka. Wuxuu qaadan jiray bishiiba $2 oo kaliya. Sidoo kale wuxuu tigidh jare ka noqday basaska waaweyn, inkastoo muddo kadib isaga tagay. Sanadkii 18aad ayuu guursaday, sanadkiisii 19aadna wuxuu noqday aabe. Balse nasiib daro sanadkiisii 20aad waxaa khilaaf ka dhex dhashay isaga iyo xaaskiisa, waxayna ka kaxaysatay gabadhii ay dhaleen. Dadaal dheer kadib wuxuu ku guuleystay inuu soo ceshto gacalisadiisa, dib ayayna u midoobeen. Harlan Sanders wuxuu ahaa shaqsi guuldarada la saaxiib ah. Wuxuu la kulmay wejigabax ku aadan shaqada, xitaa waxay nolosha ku kaliftay inuu noqdo tagsiile. Harlan Sanders marba marka ka dambeysa waxaa sii kordhaysay guuldarooyinka uu kala kulmayo nolosha si lamid ah siday u kordhayso da'diisa. Wuxuu muujiyay adkaysi iyo dhabar adeeg. Waa sababta ugu weyn ee ka dambeysa guushiisa. Haddaan si ambaqaado taariikhdiisa, waxay da'diisu noqotay 40 jir. Wuxuu bilaabay inuu diyaariyo cunto uu ka iibiyo dadka musaafiriinta ah ee fadhiya meelaha lagu sugo gaadiidka. Ma uusan lahayn maqaaxi oo wuxuu ku diyaarin jiray cuntada qolkiisii yaraa oo u dhowaa meesha ay dadka ku sugaan gaadiidka. Tirada dadka ka hela cuntadiisa oo soo batay awgeed wuxuu u guuray hotel ka ag dhowaa meesha uu ku yaalay dariiq. Halkaas uu ka furtay maqaaxi yar taasoo qaadi karta 142 qof. Kadibna wuxuu bilaabay inuu hormariyo sirta digaaga uu ku darayay. Sirtaas oo ka koobnayd 11 geed oo dabiici ah iyo noocyo kala duwan oo buhaaraad ah. Harlan waxaa loo soo bandhigay inuu iibiyo businesskiisa. Uu ku iibiyo lacag dhan $164,000 oo dollarka Mareykanka ah, laakiin wuu diiday. Sanado kadib, nasiib daro waxaa maqaaxidiisii ku soo aaday dariiq. Kadibna meel fiican oo istiraatiiji ah uu maqaaxida ka dhigtay ayuu waayay. Taasi waxay sababtay inuu businesskiisa ku iibiyo lacag gaadhaysa $75,000 oo dollar. Lacagtaas oo aan marnaba dabooli karin deyntii lagu lahaa. Markii khasaarahaasi ku dhacay, wuxuu goostay inuu shaqada ka fadhiisto oo uu qaato lacagta yar ee la siiyo dadka howlgabka ah. Lacagtii ugu horeysay ee uu howlgabnimo ku qaatay waxay dhammeyd $105. Da'diisu waqtigaa waxay ahayd 63 jir. Wuxuu ogaa in lacagtan yari aanay waxba isaga iyo xaaskiisa u tarayn, laakiin marnaba isma dhiibin. Wuxuu bilaabay inuu iibiyo dariiqada sirta ah ee uu digaaga u sameeyo. Wuxuu ku wareegi jiray maqaaxiyaha ku yaala gobollada dalka Mareykanka. Ma garanaysaa tirada maqaaxiyaha diiday inay aqbalaan? Waa 18 maqaaxiyood. Isku daygii 19aad ayaa hal maqaaxi aqbashay. Sanadkii 1964kii wuxuu helay tiro macaamiil ah oo gaadhaysa 600 kuwaasoo ku shaqeeya nidaamkiisa. Ballaadhashada intaa leeg oo isaga iyo xaaskiisa ay maamuli kari waayeen. Sidaa awgeed wuxuu go'aansaday inuu ku iibiyo hanti gaadhaysa $1 milyan iyo mushaar bilo ah oo dhan bishiiba $40,000 oo dollar. Ilaa inta uu dhimanayo. Markii dambena kor ayaa lagu qaaday mushaar gaaraya $75,000 oo dollar.
isagana wuxuu noqday la taliye ka mid ah maamulka sare ee shirkadda. Wuxuu dhintay Harlan sanadkii 1980. sanadkii 1982 maqaaxiyaha Kentucky waxay qayb ka noqotay qayb ka mid ah shirkadda Reynolds. sanadkii 1986 waxay noqotay shirkadda Kentucky qayb ka mid ah shirkadda Pepsi Cola oo laga iibiyay lacag gaaraysa $840 milyan. waxayna bedeshay magacii Kentucky oo ay ka dhigtay KFC oo laga soo gaabiyay Kentucky Fried Chicken. magacaas oo ka turjumaya in shaqada shirkadda kaliya aanay ahayn iibinta digaaga ay ka ballaaran tahay. KFC hadeer waa mid ka mid ah maqaaxiyaha dunida loogu jecel badan yahay, waxayna ka shaqeysaa 150 dal oo ka mid ah dunida. haddaan eegno dalka dunida ugu dadka badan ee China, waxay ku leedahay in ka badan 7,900 oo xarumood. KFC waxay kasbatay qulubta malaayiin macaamiil ah ee ku nool daafaha dunida, waxaana sii kordhaya marba marka ka dambeysa dhaqaalaheeda. waxaan jeclaystay maanta inaan halkan kusoo koobo mowduuceena. fadlan like noo saar videoga, subscribe noo saar haddaadan hore u saarin, oo nagu soo biir. mahadsanid daawashadaada.